wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa si rasmi ah u furay kulan hawleed lagu darsigay qorshaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo caqabadaha aan wali hortaagan qorshayaasha wasaaradda ay dhigatay iyo sidii loo xalin lahaa. Waxa kulankan ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda, agaasimaha guud wasaaradda arrimaha dibadda, agaasima waaxidada shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo wakaaladda qurbajooga iyo xafiiska xiriirinta koortiga burcadbadeedka. Waxa kulankaas faahfaahin kooban ka bixiyay oo qabanqaabadiisa iyo diyaarintiisa loo xilsaaray agaasimaha waaxda siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibadda Cabdiqani Xasan Axmed Gole. Wuxuu ka warramay qorshaha iyo kulankan iyo nooca uu yahay. imika waxaan u gudageli doonaa baljoodooyinka kulankan ama kulan hawleedkan aynu ka leenahay. waxaan ku soo dhaweyn doonaa wasiirka arrimaha dibadda Dr. Sacad Cali Shire si uu nooga warramo baljoodooyinkan ka leenahay kulankan maanta. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Sacad Cali Shire ayaa si rasmi ah u furay kulankan iyo waxa uu ka dhigan yahay wasaaradda arrimaha dibadda, isla markaana tilmaamay inuu kulankan yahay sidii la isku xog wareysan lahaa qorshayaasha wasaaradda iyo kala dalooyinka jira ee loo baahan yahay in la dhameystiro. saaka waxaan halkan isugu nimi kulan ay ka soo qayb galeen madaxda wasaaradda arrimaha dibadda iyo shaqaalaha. shirkaas oo ku saabsan qiimeyn aanu doonayn inaanu qiimeyno wasaaradda iyo howlaheeda, wixii noo qabsoomay, wixii aan qabsoomin, carqaladahana hortaagan, fursadaha jira. waxaana ka soo bixi doona insha allah bidnillaahi alkariim talooyin baa ka soo bixi doona ku saabsan waxyaabaha loo baahan in la qabto iminka muddada dhexe iyo muddada dheerba.